waxaan jeclahay inaan mahadnaqo soona dhaweeyo dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabaddan aynu ku soo bandhignay carwada iyo shirweynaha toddobaad ee tiknolojiyadda Somaliland 2025 dhammaan xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal mas-uuliyiinta hay'adaha iyo shirkadaha kala duwan hal-abuurayaasha tiknolojiyadda maalgashatada jananada ciidamada ergada ka socota dowladda Taiwan iyo guud ahaanba marti sharafta mar labaad salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan runtii ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo carwada tiknolojiyadda jamhuuriyadda Somaliland iyo shirweynaha tiknolojiyadda qaranka ugu horeyn waxaan bogaadinayaa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Somaliland oo soo agaasintay munaasabaddan heerka qaran oo isugu keentay hay'adaha dowladda shirkadaha iyo ganacsatada jaamacadaha hal-abuurka iyo maalgashatada si ay u muujiyaan horumarka uu dalkeenu ka sameynayo tiknolojiyadda ka faa'iidaysiga iyo sida aynu ula jaan qaadi karno horumarka tiknolojiyadda iyo xawaaraha dunidu ku socoto waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shirkadaha muwaadiniinta ah kuwa weyn kuwa yaryar kuwa dhexe kuwaan halkan laga sheegin intaba ee ku howlan horumarinta tiknolojiyadda Somaliland saa la sheegayna waa tartan furan tiknolojiyaddu waan u baahnayn ogolaasho qofka maskaxdiisa ay ku jirtaa tiknolojiyaddu iyo curuntiisu saa la sheegay waa la tartami karnaa ka Maraykan jooga iyo ka Hindiya jooga iyo ka Yurub joogaba waxaana suurtagala inay dhallinyaradeenaasi ay hindisi karaan waxyaabo cusub oo dunida ku cusub haddii aan la yidhaahdo waa xukuumad ahaan annagoo dhiirigelinayna aanu go'aansanay inaanu samayno award ama national award lagu dhiirigelinayo tartanka tiknolojiyadda oo loogu talagalay in la siiyo sanad kasta cidda ku guulaysatay awardkana uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland siinayo hal-abuurka dhallinyarada tiknolojiyadda waxaan anoo soo koobaya hadalka waxaan runtii shacbiga Somaliland u sheegayaa in gobashii aynu dhignay nabadda arigaabo ay sidii aynu filaynay iyo si ka wanaagsanba u qabsoontay dadkuna ay nabad wada qaateen ujeeddadii laga lahaana ay fushay shacbiga gobolka Sanaagna uu maanta nabad yahay waxaan u mahadnaqayaa dhammaan culimada Somaliland oo dhiirigelin iyo wacyigelinba nabadda ku saabsan iyo kaalintii shirweynahaba ama gobasha nabaddaba iyaguna ka jeediyey dhammaan masaajidada jamhuuriyadda Somaliland